أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلي وحن فريا المناسبة من وعمر مريسا هذا مرتين أنا على بعض يا لك كابتن مخارج مركب وهو رئيس إلهي سبحانه وتعالى ما هب إسكاله وإلهي بنوم هد علنا وحان لنا الحمد لله رب العالمين. إلهي وذاكم هذا له نوهر قليي هوشن إن نسوقني مادنو هذا النهي مدح رقمات وضيال وحجرت الله مستعان قربتشو مسؤولين تقارنك إلهي سبحانه وتعالى هالقريي استجا ينقوم هد علنا سبحانه وتعالى المطلبات waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa gudoomiyaha qurbajoogta gudoomiye Rashiid iyo Cabdiraxmaan Axmed Cabdillaahi Shube oo runtii aan oran karayno dad wadayaal runtii waxaan oran lahaa raggan runtii wayna la fadhiyaan qofkuna hadduu fadhiyo laga qurux badan hantii amaanta faraha badan oo rasuulku wuxuu yiri wasliganayaan qofku لكن مناسبة كان ستي وحنا لنا إلهي سبحانه وتعالى وحقبت كينا مكان هكذا شوكتان مكان مقنتين با الله يلقى أبال مريو هك بدنا ويدلم دنوات شران وأفراده ونقبا إن ما أنت قرب شوكتا لا يرى عنانته إن لو ترح تقل لكن ما قبوا ونسول وين يا إن أنتي وحلوش الشيء أو لو توسيو ما دام ينمد إليهن waxaa ka mid ah muxuu ahaayay barqa daga weyne runtii waa juudigiisu ma yara khayr Allah siiyo waxaa ka mid ah Maxamed Nuur Mooge waa dadaalay khayr Allah siiyo waxaa ka mid ah gudoomiyaha qurbajoogta North America iyo magaranaysaayay waqooyiga iyo dhammaan qurbajooga ah gudoomiyaha Saahina Saaqe dhammaantood way dadaalaan khayr Allah siiyo yarag far badan oo la mid ah oo ayaga oo kala ah dadaalkuna runtii waa mutanawwic oo waa far badan yahay wax badan baa inaga dhiman oo waxa weeyaan imikaan soo ka kacnay iyaguna hadda soo kaceen qudoodu waxa badan inaga maqan waxa kamid ah markii abaar u dhacaan oo kale inay qurbajoogtu isku timaado oo imadii xaaladooda ogaato taas waa inaga maqan tahay oo waxa weeyaan Cabdiraxmaan oo kale bariye dhawaday abaaraha meel badan buu wax ka taray khayr Allah siiyo waxtarkiisu maaha mid kooban isaga waxaan oran karnaa ama masaajid ha noqoto ama masaakiin ha noqoto ama dad ducafa ha noqoto ama ha noqoto ay nooc isaga runtii uma kala soocnayn khayr Allah siiyo manu ahaynin asagu ku qiimeeya qoladaas talo ma Muuse ma Dhibaan ba ma Hawla ma Yibirba ma Wardheera ma waxaas asagu ma qiimeeyo qofka dhibaatadiisa loo sheego qof uu qaateena uu sheego ama qoyska loo sheego si aan xad lahayn buu uga qayb qaataa ilaahina subhanahu wa ta'ala waxaan uga baryaynaa wixii uu bixiyana la miisaanka inuu saaro marka uu noqdanayo sidii uu dadaalo أول بين الله سبحانه وتعالى بأودري يمكن الله سبحانه وتعالى لأنه كهكذا مرماني قدومي عبد الرشيد شو تجي سمو يراين أما ميديا هالنقطة أما الله سو هذا هالنقطة هذا الشيء مثل حدا ومضى وكسو هذا الشيء وأنا لسه هذا الشيء ما كلا سكول عقلاء وقو قيران شيء أنا قلت ما شرب إلا سو هذا الشيء ما كنت بات عظم وحنا كلا سكول تناسل إلى هاي بقى حلا تداله رنتي وحلا يعني ما كان نقطانا سيدا مركيني هراء هيدان استكدر بوانا نقطاوي وحنو سوق ددقيا ان حكومه ما انت تلادا غعنتا كو هيسا وقرودان كاي هي مدن احمد محمد محمود سيلايو runtii habeenkii dhawood baan faahfaahinay markii munaasabada la joogay wax qabadkeedii ka waranay iyo hadafkii ujeedada ay lahayd aan ka waranay runtiina waxaan oran karaa mudane madaxweyne يا دمان قولها وزيرة يا دمان شعب كرر سومالين ومدة أنا كسو تشينو ما أنت رنتي وحوي ويسوق عضي ملونا سبي حالة دمرسا حلال في عم بالله ما قعابي دولة ملونا سبي هذه مرسا لكن وحلانا يحكي أنا وأن فوق العلم ما أنا تاجنين وحنتشعلنا هاي ويا بلا أنجو ده وحقول كيس بوحين كروا عدوي وما كونته مركب باهين من نقف قدام معها وحن أنو سوتش دين لها
حلال كان المدن هلو مقعب سيده وزيرو برسابو اللهم استعان ماريال حلال كان ان شاء الله تعالى مدحونها ku dhiirado sidoo ugu dhiiraday xilalka kale iyaga uu waagiyana waa qaban karaan وانا ارى انت مناسب ku ah maanta haday gobol barasaab ka noqdaan waa wax aad iyo aad u mid taliye saldhig oo kale taliye qaybaad oo kale waxa soo dhan runtii waa naga maqayeen waa tabayna waxaan shaqeynaa insha Allah ta'ala in ayagana loogu daro waayo lama arag reer Soomaaliyeed reer inta isku tagayeen madaxweyne wad maasantahay anaga ka koowa runtii waxa weeyaan wax la yaabo weeyaan anagu manihin marka waxna loo qabto ma dafir karayno waa gudbinayna waana sheegaynaa imika reeraha 10 wasiir haysta ama 8 way cabanayaan 24 hours maana media waxaan ka arkay reerka galbeedga oo laga yaabo inuu ka fara badanahay oo aad u cabanaya iyaga wasiir haysta laakiin anagu caban mayno ma cabanayno waxaan leenahay wax waan haysanaa alxamdulillah rabbil alamin laakiin loo kordhiyay doonina oo noo siyaadiyo oo aan magaranaysa martabada kale la gaarsiiyo marka taliye qaybeed bay u baahin oo taliye saldhig bay u baahin oo barasaab bay u baahin oo marayaal bay u baahin oo xilalkaas oo dhan insha Allah ta'ala oo full minister bay u baahin in ka muuqdaan hay'adka sare ee dawladda ka muuqdaan bay u baahin insha Allah baarlamaankii golaha deegaankii way soo socdaan iyaga laftigooda waxaan jecelnahay in waqtiga waxaan ka warsugi doonaa qolooyinkii loo cayimay kootooyinka macna in dadka loo cayimo ayaan ka warsugnaa insha Allah ta'ala marka xukuumadda way ku maasantay waxay noo qabatay wixii naga dhimanna waa sheegana waxaas waa naga dhiman waxaan ku noqonayaa hal kelmadaasuna waxa weeyaan kolay inagu haddaanahay mujtamac ilaahay subhanahu wa ta'ala ina abuurtay ilaahay hadduu ina abuurtayna wuxuu inoo abuurtay ilaahay wuxuu leeyahay subhanahu wa ta'ala wama khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun ilaahay wuxuu inoo abuurtay haddaan nahay ummad islaam ah oo reerahaas oo isku timid ka kooban inaanu caabudno ilaahay inoo abuurtay subhanahu wa ta'ala dawladdu waxaan ka sheegnay qurba joogti waa ka hadalnay hadda waxa la inoo baahan yahay shakhsiyadeena dadnimadeena aan ka hadalnay mika anu waxaan ka hadlayaa walaalayaal inteena halka fadhida iyo intee naga maqanba haddaynu doonayno inaan waxaan rabna ay inoo hagaagaan ilaahay subhanahu wa ta'ala ku xirano waa ku xirana ilaahay malihi macnahaygu ilaahay waa ka fognahay ilaahay waan ku xiranahay laakiin masaajidada xaafadaheena ku yaala ee afarta masaajid daami ku yaala iyo kuwa hawada ku yaala dhamaantood ba haddaanay mujtamaceena ku tukadaan markaad gasho waa faar masaajidada qaar ba waxa ku tukada afar wiil oo qora ku tukado ciyaal yar haddana maqaxiyo wada camiran yihiin guriyo wada camiran yihiin dhammaan waxa soo dhan waxa laga hadlayaa waxa wanaagsan haday dhalinyar tahay imika munaasabad baa la qabanaya wala soo buuxinaya maxaa inoo diiday masaajidada ilaahay ee khayrku ku jiro ee ilaahay subhanahu wa ta'ala xustigiisu yaalo inaan camirna maxaa inoo diiday waxaan anu ku soo khulaasanay ku soo koobaya waxa inaga dhiman ee aan tabayna waxa weeyaan walaalayaal inaanu kaafatan kitaabka ilaahay u qaadano oo aanu masaajidada camirno oo aynu ku tukano oo wacdiga dhageysano oo ilaahay isku xilna subhanahu wa ta'ala ilaahay wuxuu leeyahay subhanahu wa ta'ala inna allaha la yughayyiru biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim ilaahay qoomna nimcada ay ku sugayeen kama qaado illa ma ya asbaabta la yimaadaan dulliga saarana ilaahay kama fujiyo illa ma ya asbaabta la yimaadaan markaan waxaan leeyahay walaalayaal waa cibaadaysana alxamdulillah rabbil alamin waa tukana laakiin waxaan u baahanahay marka maqaaxiyaha imika bal laamiga daami dhex mara xaafadeena Cabdiraxmaan Axmed Shuba ila halka eeg sideed maqaaxiyood ba ku yaala intaasi way buuxaan masaajidada marka laga eedaamayna waa wada faarq weey marka barakallahu fiikum walaalayaal taasna waa iga dadaaran qof kasto inaga mid gurigiisa ku noqdo qof kasto iska masaajidka soo camiro taasna inaga nimco inoo tahay wabillahi tawfiiq assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh